weeraro culus oo Israa'iil ka fulinaysa marinka Gaza ayaa galay maalinta saddexaad oo xiriir ah iyadoo wararka ka imaanaya dhulkaasi ay sheegayaan in 10 qof ay ku dhinteen halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha joogtada ah cirka iyo madaafiicda. Goobaha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegeen in xaaladdu aad u cakiran tahay iyadoo isbitaalada ay la tacaalayaan dhaawacyo fara badan iyo agab caafimaad oo aad u yar. Shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in dad badan ay weli ku hoos jiraan burburkii dhismayaal la duqeeyay, taasoo kordhinaysa cabsi laga qabo tirada dhimashadu inay sii kororto. Duqeymaha ayaa si gaar ah u beegsada xaafado ay dad rayid ku badan yihiin, waxaana burbur xooggan soo gaaray guryo, suuqyo iyo kaabayaal kale oo muhiim ah. Dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay habeenno cabsi leh iyadoo qaraxyo daba joog ah ay gilgilayaan magaalada, taasoo keentay in kumanaan qof ay ka barakacaan guryahooda. Ma jirto meel ammaan ah oo aan u cararno, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta. Habeenkii ma seexan karno, carruurta aad bay u argagaxsan yihiin. Dhanka Israa'iil, saraakiil militari ayaa sheegay in weeraradu ay qayb ka yihiin howlgallo lagu bartilmaameedsanayo kooxaha hubeysan ee ku sugan Gaza, iyagoona ku dooday in ay ka jawaabayaan weeraro hore. Si kastaba ha ahaatee, hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyay saameynta ay duqeymahan ku leeyihiin dadka rayidka ah. Beesha caalamka ayaa ku baaqday xabad joojin degdeg ah iyo in la ilaaliyo nolosha dadka aan waxba galabsan. Qaramada Midoobay iyo hay'ado kale ayaa ka digay in xaaladda bini'aadantinimo ay soo xumaanayso haddii aan si degdeg ah loo helin gargaar iyo xasillooni. Iyadoo dagaalku uu sii socdo, mustaqbalka Gaza ayaa u muuqda mid aan caddayn, iyadoo shacabka halkaas ku nool ay wajahayaan mid ka mid ah xaaladaha ugu adag ee ay soo mareen sanadihii ugu dambeeyay.